إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخوتي في العقيدة، waxaan in sha allahu tacaala intii alla iga waafajiyo ka odhan doonaa adduunkan iyo qiimaha uu ku leeyahay alle subxaanahu wa tacaala agtiisa. adduunka aan maanta joognaa waa waxa bini aadamka oo dhammi mutasaaximka ku yahay, waa waxa dadba isku hayo, loo loolamayo, la kala boobayo, la kala riixanayo. adduunkan maanta jooga waa kan dadka intiisa badane hadduu soo galo uu farxayo. xoolo ku soo galaan ama uu qofku kharash helo yafrax, hadduu waayo uu cadhoonayo, dudayo, ama uu qadarka maagayo. adduunkan maanta joogay ah mid qofku markuu waayo wax ku colaadinayo, ku dagaalamayo, helistiisa uu cid ku xidhiidhinayo, ku soo dhawaynayo. qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay ilaahi subxaanahu wa tacaala wax walba siduu u qiimeeyey, intuu adduunkani qiimo agtiisa alle ka leeyahay subxaanahu wa tacaala. intee ayaa loo baahan yahay qofka muslimkii inuu kala xidhiidho? ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya: yaa ayuha aladiina aamanuu ma lakum ida qiila lakum infiruu fi sabiili اllahi اثاaqaltum ilى اlأrض araditum biاlxayaaةi الdunya fama mataacu اlxayaaةi الdunya fama mataacu اlxayaaةi fi اlآkhira ila qaliil fama mataacu اlxayaaةi الdunya fi اlآkhirati ila qaliil. alle subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamaya waa kuwa iimaanka laga helayo baa ilaahay leeyahay. haddii layna yidhaahdo alle jidkiisa u kaca, maxaa dhulka isugu dhejinaysaan baa la yidhi subxaana wa tacaala. ma waxaad raalli ku noqoteen baa ilaahay leeyahay adduunka kan oo aakhiro ka doorateen? war adduunkan bidhbidhkiisa nololeed dhammaantii marka loo qiimeeyo aakhiro la dhinac dhigo waa wax yar baa ilaahay yidhi, ilaa qaliil. waxa ilaahay subxaanaه wa tacaala nolosha adduun oo dhan ku sifaynaya inay tahay mataac. mataaca fi luga waxaa la yidhaahdaa ma yutamatacu bihi mima laa yabqa, waxa lagu raaxaysto ee aan waaraynin, waxa waxoogaa la isticmaalo ee markiiba dhammaada, kaas baa la yidhaahdaa mataac. ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamaya qur-aanka adduunkani qiimaha uu ilaahay agtiisa ku leeyahay wuxuu yahay waa mataac baa la yidhi. waa mataaco markiiba wuu dhammaanaya. waxaa alle subxaanaه wa tacaala mataacnimada ku tilmaamaya aayaad qur-aan oo tiro badan. waqaaluu rabbana lima katabta calayna alqitaal lawlaa akhartana ilى ajali qariib qul mataacu اdunya qaliil wاlآakhiraةu khayru liman itaqaa. ilaahay wuxuu leeyahy waxay markii la waajib yeelay inay ilaahay tiisa u diriraan, waxay odhanayaan maa dibna looga dhigo. waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi qul mataacu اdunya qaliil. war adduunkan inta lagaga raaxaystaa waa wax yar baa ilaahay yidhi.
آخرة أي خير لمن اتقى قفك لك عبصد سبحانه وتعالى آخرة يوفي عن بالي وحي إلهي قرآن كله وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع نلوش أدون بي كفر حين أدون آخرة هدي الله إيقوا متاع بالي سبحانه وتعالى ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب دنيدة أي نمركاسي كورنو الله ودلاليا ودمانيا إلهي بوحلي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها وحن كي يليبا إلهي لي دولك وحا كرسارا أردن زينة وح لغو قرحية محال لغو قرحية لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وحان أدل دلالي با إلهي لي أدونك كد إن أندتك كويته